munaasabad kooban oo ay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa isbedel lagu sameeyay hoggaanka ururka qareennada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Odayn kadib waxaa gudoomiyaha guud ee ururka qareennada Koonfur Galbeed Soomaaliya loo doortay Cumar Macalin Cabdi, halka ku-xigeenkiisana loo doortay Cabdullaahi Maxamed Cabdi. iyagoona doorashada kadib goobta ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin xilka loo doortay, waxayna sheegeen inay si wanaagsan ula shaqayn doonaan dhammaan xubnaha ururka qareennada Koonfur Galbeed Soomaaliya ka kooban yahay una shaqayn doonaan bulshada Koonfur Galbeed. أنت أسكتي ما يبغى وين لها إلهي سبحانه وتعالى وهنيكون هنيكون وين لا أنت أسكتي ما يبغى معناها محضها ذكي أو معناها مشاركين إذا كنت ما يصير ذلك والإسمان يصير إذا ما هالسنجي ما يكلم هذا ليه ذكي إذا إنقاذي ذكي إنقاذي أنت أصلا معناها ما هالنجاة إن شاء الله تعالى وين أحسن يا أنقاذ شغيل دوما لما أنت ما نوضع شغيل وده هيدا بعد أسبوعي وبعد كرسور كذا كرسور أنت أصلا ستوصل أنقاذ شغيل دوما هديلا إن شاء الله تعالى وكان مبادن لما أنتي إذا ما تسنتين السلام ما يبالغ على إني والخلاف عندي يعني أنا قدومي أجيب يوم لما أنتي هناك أقولكم ما يكن سيبالغ على أنا ما يعتبر وكيل مكايو مقدسه أم شوية الخاصة أقولكم لما حديثك كرنا فضل عليك إني سيفعل مهوجي ما دام قدومي أجيب فدي هم بينما يعني ما حمر إن حديثك سيفعل مناجير حقوق ذي لها كرنا كونفور قلبه إني حدث يوتاسف. dhanka kale qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay doorashada ayaa sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya xilligan ay u baahan tahay qareenno u dooda shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed kuwaas oo aan aqoonin sharciga isla markaasna u baahan in la difaaco. adduunyada qorshe dhalinyaro oo maamul la dhisayo dhalinyaro isdooradaas ay argo hoy wani isugu dagaalka madumay qodsaday sidii wado karaamada oo qaran dhalinyarada booska ay banaayo dhalinyarada hadda la doorhaday ihaan fala doon may qodsaday sidii la siin doorhaday anay ogdan dhalinyaradu hadda qarnu roog wali abla oo badanta sabar malla qaraf badin ismu badin hatta la tabar yari سدي أنا قولي عن تقبض أخون تجرا أنا حتى سدي هو أنا حتى سنيس كدار ما ذي أسكت درا وأنا بقول جراها شد صبر خبر هذا ولا يد من السنين أنك تقرأ فلان سيلاهي جيل كهجامي أمته وقت ururka qareennada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la aasaasay sanadii 2017 bishii December waxaana fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo ee xarun ku meel gaar ah Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ururkan loogu fadhiyaa u qareemida bulshada ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shukri Ismaaciil Axmed, RTN TV, Baydhabo.